ووطني وشذ وطن ووطني وينه للجرا ووطني ووطني في وطني ووطني في وطني xisbiga wadani oo ay maanta ahayd maalintii koowaad ee ololihiisa ayaa waxa shacabka magaalada Gabiley ee caasimadda gobolka kala soo qayb galay ololaha maalintan xisbiga wadani gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciro iyo sidoo kale saraakiisha ugu sarreeya xisbigaasi taageerayaasha kala duwan ee musharaxiinta golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee ka sharaxan xisbiga wadani iyo fagarayaasha iyo wadada halbowlaha ku soo bandhigay taageeradooda Cabdiraxmaan Diri waxa uu ka mid yahay musharaxiinta golaha deegaanka ee degmada Gabiley waxaana uu maanta magaalada Gabiley ku soo bandhigay dhoola tuskii ugu ballaadhnaa waxaana musharaxani taageeradiisa soo banaan baxay kumanaan taageerayaal oo muujinayay xuduudda iyo rabitaanka ay ku taageersan yihiin Cabdiraxmaan Diri waxaana ay ku dhawaaqayeen hal kudhiga ay ku taageerayaan musharaxa sidoo kale musharaxa ayaa fagarayaasha weyn ee magaalada Gabiley ee caasimadda gobolka la lugeynayay taageerayaashiisa sidoo kale waxa dhankiisa shacabka magaalada Gabiley la lugeynayay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka wadani Cabdiraxmaan Ciro ugu horeyn waxa fagaraha khiriyada ka hadlay Cabdiraxmaan Diri mahadnaqaya taageerayaasheena sida fiican uga soo qayb galay ee xisbiga wadani guul waa xisbiga rajada shacabka maanta reer Gabiley maanta way ismuujiyeen sidaas ku muujisan magaalo kulmiye ku sifaysan maaha maanta reer Gabiley sidaas ku muujisan ayaa la rabaa maanta 13 May inaynu isku muujino ta madaxtooyadana sidaa la isku muujiyo oo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro aynu ku soo saarno cod aqlabiyad leh oo gobolka Gabiley kulmiye imika kuma sifaysno gobolka Gabiley maanta taas ka turjumaysa gobolka Gabiley wadani guul sidoo kale halkaas ka hadlay saraakiisha ugu sarreeya xisbiga wadani waxaana ay yidhaahdeen maalinta doorashada laga rabnaa inaad fartaynan ugu hiilisaan oo u soo musharaxiinta u sharaxa golaha baarlamaanka iyo deegaankaba annaguna waxaan martidii ka nahay gobolka Gabiley ama xildhibaan golaha baarlamaanka codka ugu badan inaad siisaan oo anigiyo booqan noo kala qaybisaan Gabiley nin iskama lahayn waa la isugu yimi Gabiley hadday cid xubnayd cid uma xidhnaan doonto waa magaalo lagu tartami doono maantaanay ka muuqataa waanay ka muuqan doontaa Gabiley ma noqon doonto insha Allah magaalo qabyaalad ku xoreysa ee waxay noqon doontaa magaalo horumar iyo wadanka cid hore u kicinaysa ku xoreysa waxa sharaf weyn noo ah oo aad idinka mahadnaqaynaa sida baaxadda weynaad ugu soo baxdeen musharaxiintiina ka sharaxan xisbiga wadani ee golo deegaan iyo golo wakiilaba leh waxaanu aad ilaahay uga rajaynaynaa oo ugu ducaynaynaa inay noqdaan kuwii ku guulaysta ee dadkan iyo dalkaba anfaca ee Gabiley baahideeda iyo waxa ka maqan dhamaystirayaan gabagabin waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka wadani Cabdiraxmaan Ciro hanaanka dimuqraadiyadda ee ka jira Soomaaliland kama jiro dhammaan dalalkaanu jaarka nahay doorashadaasi isku sidkani guul bay Soomaaliland u tahay innagana guul bay noo tahay guusha ugu weyn wadani bay u tahay ma aqbali karno wax kasta oo inaga leexinaya jidkaas oo inoo suurtagelin waaya in doorasho xor iyo xalaal dhacdo waxaynu doonaynaa doorashadaas inaanay wax caqabad ka hor iman waxaan shacbiga Soomaaliland u sheegayaa inay maanta fursaddaana iska beerdarayn iyo gobolka Gabileyba kula dardaarmaya inaynu nidaamkana ilaalinno tartan wanaagsanna haddaynu nahay xisbiga wadani aynu tartanno waxaan ku kalsoonahay dadka ay sharaxnay inay cod ku filan iyo mid ka badanba ay haysaan oo gobollada ugu dadka badan waa degmooyinka ugu codka badan weliba saa'id baa idinku jira inta saa'idkaana ciddaa siinaysaan miyaa garanaysaan barkhad batuur jaamac gobolnimada Gabiley waxaan u malaynayaa wadani ka soo horreyn mayso aniga iyo Axmed Muuse Geedi Allah u naxariistay sanjab 2002 halka maanu ka ballan qaadnay inaanu gobolka Gabiley gobolnimadiisa xaqiijino
أصلا شيء ده نميدان دوران إلا الله كوريا الله بدي عندها دوران يسينا وحبا كما يقوان ويلا حاجي تلفزيون كقرنكا قبلي